السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال رمضان كريم meel kasto aad joogtaan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu inaga aqbalo cibaadada soonka iyo acmaasha saalixaadka dhamaantood waxaan klibkan u duubayaa inaan adigaagan daawanayo kuugu tilmaamo farta kuugu fiiqo hal fursad oo muhiim ah waa fursad aad ka faa'iideysan karto walaalahana uga faa'iideyn karto waa fursad waqtigeedii joogta marba inaan klibka kugu dheereeyay ma la socotaa daawadahan daawanayo in dalkeena qaybo kamid ah ay ka jiraan barakac baaxad leh iyo daadad iyo fatahaado dhamaantoodna galaaftay naf maal iyo burbur hantiyeed intaba haddii aad la socotay ama aad horay u maqashay waa ku baraarujin waana ku fursad aad ka faa'iideysan karto walaalahana uga faa'iideyn karto bal waxaad qiyaasataa bal waxaad suuraysaa oo qalbigaaga ka suuraysataa hooyo Soomaaliyeed ubad Soomaaliyeed hooygii ay galayeen cariishkii aqal Soomaaligii gurigii ay galayeen nooc doonaba ha noqdo ee guriyaheena Soomaaliya daad kula tagay wixii dhex yaalay iyo dhismihii midna aan la arag kuwana dhismihii ha hadhay ee wixii gudaha yaalay iyo naftoodiiba u halakeeyay haday beer ahayd iyo hadii ay ahayd hanti kare oo gumara oo ahaydna uu la tagay waa masiibo samaawi ah mararka qaarna timaada laakiin lagaga baxo istaakulaysi iyo isgarabtaag isu hiilin iyo iyada oo maalintaas oo kale la iscaawiyo la isna gurmado sababta ay inta badan Soomaalidu isugu gurmato runtii waa dad asxaanka iyo wanaaga u dhagan nugul sida ay waxyaabaha kale ugu dhagan nugul yihiin maanta oo kale marka ay masiibooyinkaas yimaadaan waa markii ay Soomaalidu isu gurman jirtay waxa ayaamahan dhiiladeeda iyo dhawaaqeedu dhagaheena ku badnaayeen magaalada Qardho iyo Baar Dheere oo ay daadadku la tageen dad badan naftoodiina galaafteen hantidoodii iyo gumaradoodiina ay daad ka raaciyeen haddaba ubadka Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed ee deegaanadaas ku nool waxay mudan yihiin in loo gurmado la garab istaago nafteenana aan uga faa'iideyno laba siyood baad uga faa'iideysan kartaa eray wanaagsan inaad tiraahdid adinkaaga wixii aad ku awoodo inaad ku sadaqadaysato sadaqadu yaryaraysi ma laha $1 hadaad ku sadaqadaysato waa wax kayd ku ah xagga Allana aad dhigatay sadaqada bishan la sadaqadaysto bishan la baxo way ka ajri badan tahay bilaha kale sababtoo ah bishan baa ka fadli badan bilaha kale waxay noqonaysaa cibaado waqtigeedii ku soo aaday xilli baahiyeedka iyo xilliga gaajada waxa aad bixisaa xilliga dheregta waxa aad bixiso la mid ma aha lana ajri ma aha hase yeeshee waqtigii ku haboona iyo meeshii ku haboonayd baad joogtaa haddii aadan xitaa jeebka wax ka soo saari karin kuna sadaqadaysan karin ereyga wanaagsan iyo ummadda ay wax ku sadaqadaysta dadka jilicsani waa ku sadaqo ma haysano dawlad dhaqaale baaxad leh ku taagan oo u gurman karta dhammaan baahiyaha kana jawaabi karta dhammaan baahiyaha ka jira Soomaaliya hadii ay tahay tan hadda taagan ee roobabku keeneen iyo hadii ay tahay dadka abaaruhu naafeeyeen ee xoolahoodii ay la tageen haddaba baahidu way kala tahay marka aad laadahay hooy aad fooda geliso iyo waxa aad caloosha geliso meelnaba kuma bad qabto marka labada laadahay marka ay gurigaagii iyo wixii gumara ku ahaaba daad ku qaatay banaana aad soo istaagtaana waa marxaladda hadda taagan oo kale haddaba mar walbaba waxaad ku baraarugsanaata inaad haysato fursadaas kana faa'iideysan karto walaalahana uga faa'iideyn karto dalka gudihiisa hadaad joogtid gobolada badankooda sida wararku nagu soo gaadhayaan waxa ka socda gurmad ay dhalinyaro inta badan horkacayso waxa sidoo kale wadanka dabadiisa sida hadda Nairobi oo kale dhalinyaro badan oo horkacaysa gurmad noocaas ayaa jira waxana u ururinaysa dhaqaalana ugu ururinaysa baahida taagan ee ka jirta meelahaas ay daadadku naafeeyeen in wax la istaro mar walba waa waajib xusuusnow maantana waa maalinteedii wixii aad dadkaaga iyo dalkaaga gashatidna waa sadaqa jaariye ah waqtigeedina ku soo aaday
ha islihin dalku dawlad buu leeyahay dawladdu dhaqaalaheedu waa halka dollar nus dollarka oo la ururiyay waxayna ku jiraan gacmaha dadka Soomaaliyeed wixii aynu isu geynaa wax weyn buu noqonayaa ra'yiga iyo erayga aan isku darsanaana waxbuu goynayaa jeebka waxaan ka soo saarnaana sidoo kale waxbuu goynayaa haddaad qalbigaaga ka suuraysato ubadan hoy lahayn oo banaan tuban oo gaajaysan diifaysan dihaalka gaajadana la daala dhacaya runtii wax badan baad caloosha ka gubanaysaa waana naftaada oo kale oo muuminka hadii uu xubin xanuunto ama ay kaarto dhamaantii way wada kaari oo waa jismun waahid waati rasuulku inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam alayhi hadaba fursadaas dahabiga ah inaad ka faa'iideysato isku day daawadahan daawanayo waa ku fursad mar walbana ma helaysid bil ramadaan oo xilli sadaqa jaariya la bixi karo dhibaatooyinkan oo kalena ay dhacaan aad ka faa'iideysan kartid daawade hadii clipkan uu ku soo gaaro waxaad la wadaagtaa asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iideystaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh